Peru ama Jamhuuriyadda Peru ee dhacda galbeedka Koonfurta Ameerika waa dal ku caan ah kala duwanaanshaha dabiiciga ah iyo dhaqameedka gaarka ah. Waa dal xad la leh dalalka Ecuador, Colombia, Brazil, Bolivia iyo Chile, halka galbeedkana ay ka xigto badweynta degan ama Pacific Ocean. Peru waa hoyga Norte Chico oo ka mid ah xadaaradihii hore ee caalamka, waxayna raacsaneyd imbraadoriyadii Inca ama Incan oo ay aasaaseen shucuubta la yiraahdo Hindida Cascas. Waxayna ahayd imbraadoriyadii Inca midda ugu tunka weyn Ameerika ka hor inta uusan gaarin Christopher Columbus. Caral Supe oo Peru ku taala ayaana loo aqoonsan yahay inay tahay goobta ugu qadiimsan ee Ameerika isla markaana uu bini aadam ku gaaray, waxayna haatan taariikhdeedu u laabanaysaa 5,000 oo sano. qarnigii 16aad waxaa dhulka Peru qabsatay imbraadoriyadii Spain, waxayna shaacisay in dhulka Peru la hoosgeeyay taajka Isbaanishka. kadib markii ay Peru ka xorowdayna Spain 1821, waxay la kulantay qalalaasooyin siyaasadeed, dhaqaale la'aan iyo sidoo kale waqtiyo deganaansho iyo horumar ah. Bedka dhuleed ee dalkan waa wax ka badan 1 milyan oo kiiloomitir isku wareega, asigoona sidaasi ku noqonaya dalka 19aad ee ugu dhulka weyn caalamka. dhanka kale tirada dadka dalkan waxaa lagu sheegaa 31 milyan, intooda badan ama boqolkiiba 66 ayaana ah dadka la yiraahdo mestizo, waxayna sida guud dadka dalkan isugu jiraan dad asal ahaan Hindida Cascas ah iyo kuwa Yurub, Afrika iyo Aasiya u laabanaya. luuqadaha rasmiga ah ee dalkan waa Isbaanish iyo Aymara, waxaana xusid mudan inay jiraan dad ku hadla luuqado maxalliya sida dad ku sugan kaymaha Amazon kuwaas oo ku hadlaan 13 luuqadood oo kala duwan. kala duwanaanshahan balaaran ee ka dhex jira bulshada dalkan ee isku milmay waxaa ka dhashay fan mug weyn, hiddo iyo dhaqan la xuso iyo cuntooyin ka caan ah guud ahaan Ameerika. cuntada wadaniga ah ee dalkan isla markaana caanka ah waxaa la yiraahdaa roasted guinea pig, halka cabitaanka wadaniga ah ee dalkan lagu magacaabo pisco sour. dalkan waxaa ka dhaqan ah dabaaldega sanadka cusub in la isa siiyo surweel leh midabka jaalaha, waxayna aaminsan yihiin inuu keenayo nasiibka sanadka cusub ee dhalanaya. Peru waxaa aad ugu badan xayawaanka la yiraahdo alpaca ee caba isla markaana cuna xaddi ka yar inta ay cabaan ama ay cunaan riyaha. xayawaanka wadaniga ah ee dalkan uu ku faanana waa vicuna oo ah asigana geelyare ee ishabahaan alpaca, waana kuwa dhogortoodu aad loo qiimeeyo isla markaana leh 22 midab oo dabiici ah. Peru waxaa laga helaa buuraha bacaadka ee ugu dheer, waxaana gaar ahaan laga helaa saxaraha lagu magacaabo Sechura, waxayna dhirirka bacaadkeedu uu gaarayaa wax ka badan 3,000 oo fiit. sidoo kale waxaa laga helaa dalkan dooxada labaad ee ugu hooseysa caalamka, waxaana lagu magacaabaa Cotahuasi. midda kaliya ee ka hooseysana waxaa laga helaa Mareykanka, waxaana lagu magacaabaa Grand Canyon. sidoo kale waxaa laga helaa Peru Incan Empire ama Machu Picchu oo ka weyn Imperialka Roma marka la eego halka ugu sareysa. wuxuuna Incan Empire leeyahay wadooyin 24,000 oo meel ah oo sida shabakadii oo kale ah, waxaana la dhisay qarnigii 14aad, wuxuuna levelka biyaha ka sareeyaa 7,000 oo fiit, waana mid ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee UNESCO aqoonsan tahay. sidoo kale wuxuu ka mid yahay 7 cajiibka ah ee loo codeeyay sanadkii 2007. Peru waa halka laga helo harada ugu jooga sareysa caalamka, waana mid lagu magacaabo Titicaca oo dhulka ka sareysa in ka badan 11,000 oo fiit. haradan u dhaxaysa Peru iyo Bolivia waxaa ku nool rah wata magaceeda oo kale, waxaana 2016 lagu arkay haradan meydka 10,000 oo raha. tacbashada bardhada asalkeedu waa koonfurta dalka Peru, inkastoo la raaciyo laguna daro waqooyiga Bolivia. waxaana dalka Peru laga soo saaraa in ka badan 3,000 oo nooc oo bardha ah. sida ay Soomaalida geela isugu faanto ayay dadka reer Peruna isugu faanaan bardhada, oo waxaa ka jirta dalkan suugaan badan oo ku qotonta bardhada. qaramada midoobay waxay sheegtay 2013 in dalka Peru yahay dalka ugu badan ee laga soo saaro daroogada loo yaqaano cocaine-ta, isla markaana leedahay suuq gaaraya 1 bilyan sanadkii. dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu badan ee ka jiraan kala duwanaanshaha dabiiciga, waana mid cimilo ahaan kala duwan, isla markaana laga helayo dhir iyo xayawaano badan oo dunida kasii dabargo'ayaan. waxaana geedka wadaniga ah ee dalkan lagu magacaabaa Cinchona, waxaana loo adeegsadaa caafimaad ahaan. nidaamka xukun ee dalkan waa jamhuuri, wuxuuna u qaybsamaa ilaa 25 gobol, waxaana u caasimada oo aan ka tirsaneyn goboladan magaalada Lima oo sidoo kalena ah magaalada ugu weyn dalka. madaxweynaha haatan ee dalkana waa Martin Vizcarra.
oo xilka kala wareegay Pedro Pablo kadib markii 22 Maarso ee 2018 isu casilay fadeexad la xiriirta inuu codadkii doorashada iibsaday. waxaana 17 Abriil ee sanadkii 2019 madaxa xabad isaga dhuftay madaxweynihii hore ee dalkan Alan Garcia kadib markii ay ciidamadu tageen gurigiisa si ay u soo xiraan maadaama lagu helay musuqmaasuq. dhaqaalaha dalkan kor u kac ayuu sameynayay 15 sano ee u dambeeyay, waxaana loo sababeeyaa kobaca dhaqaale ee dalkan, deganaanshaha siyaasadeed iyo hagaajinta shuruucda ganacsiga iyo midda maalgashiba. Peru ayaana ah dalka toddobaad ee dahabka ugu badan soo saara caalami ahaan.